Assalaamu calaykum, waa Maxamed oo nagala soo hadlayo magaalada Omaha, gobolka Nebraska. Afur wanaagsan, Ramadaan Kariim. Waxaan rabaa inaan la wadaago warbixin aan ka helay Douglas County Health Department oo ah qaybta degmada caafimaad ku qaabilsan magaalada Omaha. Warbixintan oo ku saabsan in la furay masaajidadii iyo goobihii cibaadada ayaan rabaa inaan la wadaago warbixin aan ka helay xafiiska wuxuu ii sheegay in masaajidadu ay si official ah ama si caadi u furan yihiin. markii hore waxaan ogeyn masaajidadu inay furnaayeen oo kaliya loo ogolaa 10 qof oo kaliya inay ku tukan karaan. maadaama lagu jiro bil Ramadaan, waxaan isku xilsaaray in akhbaartan raadiyo si dadka ay u helaan inay ku tukan karaan masaajida salaadaha talaawiixda iyo salaatuleylka iyo salaadaha caadiga ahba. waxaa la ogolaaday gobolka Nebraska oo dhan in dadku ay ku tukan karaan masaajidadooda ayaa loo ogolaaday. sidoo kale waxaa dadka lagula taliyay inay ilaaliyaan waxa la yiraahdo social distancing ama kala fogaanshaha 6 tilaabo dadkuna isku jirsadaan. waxaa kaloo sidoo kale la sheegay haddii familku oo hal famil laga yaabo 3 qof ka kooban 4 qof inay baxaan masaajidka ay tagaan, dadkaas waxaa loo sheegay waxaa lagu wargeliyay inay masaajidka tagaan oo hal leen ku tukan karaan. waa cidii qoyski waxa la yiraahdo household waxa la yiraahdo ama family hal meel ku nool haday tagaan masaajidku hal meel ay ku tukan karaan. laakiin familada kale way ka fogaanayaan 6 feet. for example, walaalka oo ku nool guri kale oo kugu dhagan oo aan ahayn ka ku nooshahay hadda isku raxdaan masaajidka labadiin waxa kula tukanaysaan social distance. sidoo kale waxaa lagula taliyay dadka sidaan ognahay bisha Ramadaan North America dad ku nool cuntooyinka ay masaajidka geeyaan dad damaanad qaada yiraahdo asbuucan ama maalintan aniga ayaa raashinkan bixinayo oo lagu afuri doono dadka jaamacadan ay yimaadaan ay meesha ku afuraan ama ku suxurtaan. waxaa la sheegay gobolka wuxuu soo saaray inaan saas la sameyn karin oo aan hal qof keenay oo guriis ka soo qaaday kusoo kala maqaayad ka keenay inuusan u keeni karin mujtamaca dhan ay socodsiin karin. laakiin familku cunto way soo qaadan karaan oo 4 qof oo isla guri ku nool haddii cunto soo qaataan ay masaajidka imaadaan way ku cuni karaan. laakiin cuntadaada ma siin kartid qof kale oo guri kale ka yimid. waxaa kula cuni kara qofka guriga aad degan tahay ku nool ayaa cuntaas kula cuni kara. sidaas in la ogaado dadka gobolka Nebraska ayaa informationkan oo aan xafiis kala xiriiray oo ka soo helay. sidoo kale waxay ay ku talinayaan gobolka Nebraska qaybta caafimaadka human service sidoo kale dadka waayeelada ah oo aadka daa'da u ah inay iska joogaan guryahooda. sidoo kale dadka xanuunada qaba ama laga yaabo inay xanuunsan yihiin in ayaga sidoo kale gurigooda ku ekaadaan aysan masaajida ama meelaha cibaadada tegin. sidoo kale waxaa loo sheegay dadka iska dareema qandhada haddii qandha ku qabato kale ama calaamadaha cudurkan lagu yaqaan oo kale inaadan imaanin. sidoo kale haddii qof gurigaada ka mid ah laga helo cudurka coronaviruska ama COVID-19 kana inaadan masaajidka tegin. sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka masaajida maamulkooda inay albaabada furaan si ay dadka iridda u taabaan markay soo galayaan iridda ay furnaato. sidoo kale inay sameeyaan waxyaabaha lagu dhaqdo gacmaha inay meesha soo dhigaan sida sanitation gacmaha lagu dhaqdo kale musqulaha waxa loo isticmaalo kale ayaga ayaa ka mas'uul ah. sidaas darteed akhbaartan waxaan ka helay xafiiska Douglas County qaybta caafimaad ku qaabilsan anigoo Soomaali ana waxaan isku xilsaaray inaan Soomaali la wadaago akhbaaraadka ku saabsan waxa soo kordha gobolka Nebraska maadaama aan ka mid ah bulshada ku nool magaalada Omaha ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka Soomaalida meesha ku nool iyo dadka kaleba. waxaan isku dayaa markasta inaan raadiyo wixii cusub iyo wixii ku soo kordha iyo wixii loo baahan yahay iyo wixii ay ka soo baxa dhanka maamulka aan la deganahay ama dadka dawladda meeshan joogta maamulkeeda. sidoo kale waxaa lagula talinayaa dadka masaajidada haya in dadka imaanaya masaajidka lacala haday la imaadaan kitaabka ama waxa ay kitaabka la yiraahdo Quraanka qofka haduu la yimaado inuu kitaabkiisa la laaban karo oo soo qaadanin midka masaajidka yaalo si uu socodka u faafin. markastana in dadka markay kitaabada akhristaan kadib masaajidka kitaabadiisa la dhaqaa oo meel la dhigaa. sidaas ayaa warbixintan aan ku helay. waxaana ka helay qaybta caafimaad ku qaabilsan magaalada Omaha ee gobolka Nebraska. waxaan rajeynayaa muslimiin fara badan ku farxi doonaan akhbaartani laga bilaabo maanta oo Isniin ahayd. masaajidu si official ah ayaa loo furay waa lagu tukan karaa salaadaha oo dhan dadka dhan way imaan karaan. jamaca waa lagu tukan karaa jimca waa lagu tukan karaa haddii dadka kala fogaanayaan oo social distance la ilaaliyo. sidaas darteed waxaa kaloo talaawiixda salaatuleylka waa lagu tukan karaa. laakiin waxaa la diiday in cunto la keeno masaajidka hal qof cunto uu keeno in dhammaan dadka dhan ay cunaan. sidaas darteed waxaan rajeynayaa in arrintan ay dad badan ku farxi doonaan gobolka Nebraska. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.